بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad ka joogtaan daafaha caalamka waxaad ku soo dhawaataan imtixaanaheennii joogtada ahaa ee ku saabsanaa sarbeebaha af Soomaaliga caawa waxaan jecel lahaa inaan idinla wadaago sarbeebaha af Soomaaliga ee la xiriiro isku dhowaanshaha iyo xiriirka dadka sarbeebahan ku saabsan xiriirka dadka iyo isku dhowaanshaha ma aha sideedan bes een idinla wadaagayo sarbeeb aad u fara badanaa jiro oo buug xataa laga qori karo laakiin intan ayaan soo xushay inaan idinla wadaago marka kow isku god bay ku kaadshaan marka horey ayaan u sharaxay oo runtii waxaan idhi sarbeeb waa weedh dhan ama weedh aan dhammayn oo macnaha muuqda mooye macno kale ku hoos jiro isku god bay ku kaadshaan macnaha ku hooseeyo dhabtaa waxaa waaye waa widaayo ama saaxiibo waa isugu baxdaa waa quud iyo qaaraan wadaag marka sarbeebta iyada ah macnaha ku hoos jiro oo saxda ah waa intaas waaye waxaad sidoo kale ogaataan ereyga saaxiib waa af carabi laakiin wuxuu ka mid yahay ereyada aan la soo celi karin oo runtii af Soomaaliga aad ugu milmay laakiin ereyga dhabta ah ee Soomaaliga ah ee saxda ah waa widaay sarbeebta tusaale labadaas wiil arday bay isla ahaan jireen oo waa widaayo isku god ku kaadsha sarbeebta labaad waa beer iyo wadne laba isjecel laba isku dhintaan waa isku dhintaan laba isjecel waa isku dhintaan waa dhareer wadaag wax waliba waa isu huraan tusaale ladane iyo ladan waa lamaane isjecel oo beer iyo wadne ah sarbeebta saddexaad oo aan jecla caawa inaan idinla wadaago waxay tahay meel buu iiga soo baxay oo macnaha dhabta ah oo sarbeebtan ay tahay waa i kaalmeeyey waa i gacan qabtay wax aan filanayn baan ka helay tusaale maalintaad liidato qofkii ku gacan qabtaa waa qof meel kaaga soo baxay sida badanna lama iloobo sarbeebta afraad qaraabakiil oo macnaha dhabta ku hoos jiro ay tahay isqaraabaysi isxigsi isgarabsi isdhowaysi isu roonaan isu eexasho isu hiilin tusaale yuusuf baa yidhi nimankan qaraabakiil baa shaqada lagu geeyey sarbeebta shanaad isku qaansa meerin oo macnaha dhabta ay tahay macnaha dhabta uu yahay isu hiilin dhib isku kaalmayn qalab isa siin dhan u xaglin tusaale isu qaansameerin waa qalab isa siin ama isku hiilin sarbeebta lixaad irmaan waraabsi waa laba erey oo naqaano irmaan iyo waraabsi macnaha ku hoos jiro oo dhabta ah waxaa waaye u exasho u roonaan xeerin u sadbuurin tusaale ummad sabool ah madaxdeeda lagama waayo irmaan waraabsi iyo eexasho mid xigo sarbeebta toddobaad waa suubaasaalax oo macnaha ku jira ay tahay sasabid dejin dhilifka dhowrid
isu jilcin cara udiid koolkoolin tusaale waddamada reer galbeedka carruurta ku nool waa carruur subaasaalixii laga badiyey sarbeebta ugu dambaysa oo aan jecla caawa inaan idinla wadaago waxay tahay xaggiinna qori cad loo tuur xaggiinna qori cad loo tuur oo macnaha ku hoos jira ay tahay waan idinka raystay waan raystay meeshii meel ka fiican meel uga roon meeshii meel ka fiican meel ugu roon tusaale cali baa yidhi gaalkacyo ha iigu soo qaadin waan ka raystay oo xaggeedaan qoray cad u tuuray waa isaas farxooda leh kulan dambe xiise leh intaan kulmayno qodob ka lamida qodobadan insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatuh